anigoo ah Cabdirasaaq Axmed Xaashi waxaan u taaganahay musharax madaxweynenimo dowladda federaalka xisbiga waxa la yiraahdaa xisbiga horumarka amniga dimuqraadiyadda intaan u gudagalin horumarka amniga iyo dimuqraadiyadda waxaan rabaa inaan ka hadlo taariikh nololeedkayga kooban waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan wax ku bartay dugsiga hoose dhexe Yaasiin Ismaan iyo Xawtaako waxaan dhigtay dugsiga sare beeraha iyo dhirtii daaqa dagaalka markuu dhacay waxaan 93 u cararay Nairobi halkaasoo aan ka soo galay Mareykanka 95kii waxaan bachelorkayga ku qaatay interdisciplinary arts and science concentrationkayga wuxuu ahaa self and society masterkayga shahaadada labaad waxaan ku soo qaatay social and science marka waxaan rabay inaan ka hadlo horumarka aan gaarsiinayo ummadeena Soomaaliyeed horumar ayaan gaarsiin doonaa ummadeena Soomaaliyeed waxaan sameyn doonaa isbedel waxaan keenayaa bur ayaan keenayaa oo ku nooc cunto laga sameyn karo burkaas oo cuntada beeraha laga sameyn doono dhul beereedka waxa ummadeena waxa weeye xoolo dhaqato waxaan ka dhigi doonaa beeraley dadka beeraha degan waxaan siin doonaa dhul beereedka degan waxaan siin doonaa hal cagaf ay lacagteeda dib u soo celin doono halka cagaf wuxuu ku fadhin doonaa 15,000 saddex waqtigii siyaad bar waxaa la beeri jiray 1 milyan oo hektaar haddii 3 milyan oo hektaar ilaa 4 milyan oo hektaar la beero waddanka oo dhan ayay ku filan kartaa xitaa Somaliland waa ku filan tahay haddii aan soo qaato waxaa ku bixi doonta cagafyadaas 1 bilyan 500 milyan iyo warshado shiida cuntada ka soo go'da beeraha waxay shiidi doonaan waxay ka dhigi doonaan burkaas oo laga sameyn karo ku nooc cunto horumarka kale aan keeni doono waxa weeye waxa ummadeenu waa xoolo dhaqato waxaan u sameyn doonaa ceelal biyo ay ka cabaan iyo biyo xireeno ay ka cabaan waxaan gaarsiin doonaa heer degmo ilaa heer tuulo waxaan kaloo sameyn doonaa cuntada laga sameyn karo waxaa kamid ah burka waxaa laga sameyn karaa baastada rootiga muufada ceeshka iyo ku nooc cunta laga sameyn karaa burka beeraha ka soo go'o warshadaha aan keeni doona ayaa bur u bedeli doona raashinkii waddanka ka soo go'ay waxaan kaloo sameyn doonaa kalluumaysi 10,000 oo doomood ayaan ku bilaabi doonaa in dhalinyarada ilaa 20,000 oo dhalinyaro ah shaqo abuur aan ugu sameeyo halkaasoo ay dib u soo bixin doonaan qarash ku baxay doomaha halkaasoo aan kasii abaqaadi doono dhalinyaro kale inaan kalluumaysi u sameeyo oo shaqo abuur aan uga dhigo waxaan kaloo wax ka qaban doonaa amniga waxaan gaarsiin doonaa master plan waddanka oo dhan waxaan sameyn doonaa in booliiska ugu yimaado gurigooda iyo caafimaadka gurigooda ay ugu yimaadaan ay ku daaweeyaan ama amniga wax uga qabtaan ilaa heer degmo ayaan gaarsiin doonaa waxaan siin doonaa askarta iyo booliiska iyo militariga iyo asluubta waxaan siin doonaa bulletproof helmet oo koofida xabadda karin si ay hawshooda ugu fududaato waxaan kaloo sameyn doonaa waxaan gaarsiin doonaa saldhig booliis heer degmo ilaa heer tuulo goobo caafimaad waxaan gaarsiin doonaa heer degmo ilaa heer tuulo waxaan gaarsiin doonaa jeelal heer gobol ilaa heer degma ayaan gaarsiin doonaa jeelal dadka amniga wax u dhima lagu xiro waxaan gaarsiin doonaa waxaan la diriiri doonaa musuqaas oo baahsan ayaan la kaashan doonaa maxkamadaha iyo booliiska waxaan kaloo wax ka qaban doonaa isbedel aan ka keeni doonaa dhaqaalaha
halkii dollar wuxuu ahaa 30,000 oo shilin Soomaaliya halkii dollar waxaan ka soo reebi doonaa 500 oo shilin Soomaali ah halkaas oo suuqa xorta ah oo adduunka uu ka joogo 500 halkii dollar 500 ayaan research aan sameeyay ayaan ku ogaaday in halkii dollar 500 oo shilin Soomaali uu ka joogo adduunka waxaan kaloo gaarsiin doonaa doorasho cod iyo qof ah sanadku markuu yahay 2025ka caafimaadka ayaan wax ka qaban doonaa ayadoo aan la kaashan doono WHO World Health Organization iyo UNICEF waxaan kordhin doonaa dhaqaatiirta neerska medical assistant physicianka iyo wixii lamida ayaan WHO dhaqaale uga raadin doonaa waxaan kaloo sameyn doonaa golaha baarlamaanka golaha aqalka sare aqalka hoose shaqaalaha ayaan waxaan xuquuqdooda aan kor u qaadi doonaa mushahaar ku filan inay helaan waxaan kaloo gaarsiin doonaa golaha wasiirada baarlamaanka ciidamada booliiska asluubta booliiska militariga waxaan la kaashan doonaa mushaarkoodan kordhin doonaa waxaan la kaashan doonaa World Bank iyo la gaarsiin doonaa anyway waxaan sameyn doonaa waxaan gaarsiin doonaa wadanka cod iyo qof isbedel ayaan keeni doonaa dhaqaalaha horumarka amniga waxaasoo dhan ayaan wax ka qaban doonaa